السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سوري وصاحبة قيمة بدنا كوحنا دينار كان ولا لا فاميل ومركلة مقال هرلة مقال كان وحنا وجهنا مسلسل ولا محاك عسم حاسة كسوكر حلقة السنة كسوجان اللي إحنا نلبات أو حلقة آدي وحيسة بدن تاس ولا السوقايو طبعا هذه تمركوا سوب وقت دينار كان سبسكرايب نصر صدق المقال كان لايك نصر وما سنتك بعد يسودو هذا بس أقول لك نحب كوسكا يا وحياة بدنا يدعوين بدنا ينكوارجنا يا هيدين مركا ugorintii maanta hadalhaynta u badan waxay ka jirtaa dhankii Aasiya iyo sidoo kale dhanka Instagramada waxa la dhex wareegaya sawir gabadhiisu saaydo joogtay isbitaalka isla markaana uu ku ciyaarisay iyadoo yacni ahaan ugu ciyaarisay qof buko oo kale macnaha sariirtii bukaanka ay jiiftay halkaasna waxa laga cadeystay in qof kamida jilayaasha ama qof muhiim ah in dhakhtarka gali doono xalqada soo socota suuseedan adii isbitaalka joogta iyo sidoo kale toolgaaba waqtigaas joogay waxa laga yaabaa in aysan ayaga ahayn laakiin qof kale ayaa galaya isbitaalka badi dadku waxay leeyihiin qofka isbitaalka galaya waa iska cad waa email ay leeyihiin halka dadka qaarina ay leeyihiin waa gabadhii Aasiya ahayd maadaama ayadana sulna sii rabay sidoo kale waxa la soo cadeeyay in Aasiya laga badin doono ciyaartii saxda in laga badin doono ayaa la soo cadeeyay waxaana ka badin doona Yasmin ma shay kari suntii in ayadana cabtay oo suntii in cabtay ma shay kari laakiin ciyaarta waa laga badiyay waxaana loo badinayaa Aasiya iyo email in isbitaalka la dhigi doono email iyadoo waan garanaa sababta isbitaalka loo dhigayo Aasiyana waxa loo dhigayaa sunta dartiisa hadii ka badbaadana bal waan arkaynaa halka ay sheekadu ku dambayso hadaba sidoo kale waxaa la sheegay in yarka Cumar lagu magacaabo uusan ogaan doonin aabihiisa xalqadaha nagu soo wajahan muwajaha weyn way ka dhaxmari doontaa maadaama star beerkii lagu magacaabayay uu gabadhii email ahayd inkastoo aan yacni 100% la hubin qofku gaariga tiirsinayna email tahay haddana Cumar iyo aabihi waa kuwa istagaali doona halkaasna kuma heshiin doonaan marka Cumar saadaradeeda ma ogaanayo qofka uu yahay qofka aabihiisa yacni ma ogaan doono haddaba dadii Shinguul ahayd halkay ku dambayn doontaa Shinguul runtii odayga oraana meel banaan ayuu ka dhaqaaqay sidoo kale ilmaheeda ayaa soo dhow waqtigu dhalan lahaa marka dhowrta xalqada soo socoto waxa laga yaabaa Shinguul in doorkeedu xoogaa daciifo jilin badan aan ka weyno laakiinse markuu ilmaha dhashay kadib ayaa hawshu bilaabma doontaa ilmaha waqti xaadirka waxaan filayaa in uu ku jiro bishii 8aad sababtoo ah toddobaadka waxaan sheegnay bishii 7aad inuu ku jiro toddobaadka horeeyna bishii 6aad toddobaadka horeeyna bishii 5aad toddobaadka horeeyna bishii 4aad toddobaadka horeeyna uu taxanaha bilaawday ayay ahaydba marka taxanaha dhan 5 toddobaad ayuu soo xasantaa toddobaadna min bil ayay noo xisaabinayaan iyaga sheegayaan marka ilmaha ama cunuga Shinguul waa u dhalan rabaa sidaas daraadeed markuu ilmaha soo laabtay bas ay Shinguul jilinkeedii iyo balaayadeediba ay soo laaban doonaan haddaba sidoo kale waxa aad iyo aad la soo weydiinayaa Nabhat odaygii Axmed Ilmaas ah ma sidaasi ayay kaga haraysaa oo Axmed Ilmaas ma sidaasi ay afraha uga qaadi doontaa Nabhat ugu horeyntii waxay dagaali doonaan qoftii Shiwaal ahayd sidii xalqadii u dambeysay baan aragnay kadib markay dagaalaan ficil darteed ay odayga Axmed Ilmaas ah ula sii soconaysaa haddii uu xiriir soo bandhigana waa sideeda inkastoo Nabhat hadda ka hor ka dhawaajisay nimanka naagaha qaba in aysan marnaba la hadlin sayada koor Suusan ba ku tiri labada xalqadood u dambeysay mise saddexda xalqadood u dambeysay mid kamid ah ay ahayd inkastoo Nabhat saa sheegtay haddana waxa laga yaabaa Axmed Ilmaas in xiriirkoodu uu sii balaarto haddaba Suusan maxay tahay sababta ay u waaninayso qoftan lagu magacaabo Nabhat ayadoo og Nabhat waxay ku sameysay ilaa Nabhat gurigii Suusan way ka soo eriday ay ahaydoo banaanka ay ku soo tuurtay hadana Suusan si walaaltinimo ay tala u soo waxay ku tiri ninkaasi iskaga fogow waa Axmed Ilmaas yani ninkaasi iskaga fogow kulli waxay ka wadaad qof fiican ma aha aniga hadda ka hor isa soo maray sidoo kale lagama yaabo in arrinkan u sheegto sababtoo ah Nabhat hadii arrinkan loo sheego waxa laga yaabaa inay Cumar u sheegto oo Suusan lagama yaabo inay u sheegto Axmed Ilmaas inuu yahay aabaha dhalay Cumar inuu yahay lagama yaabo inay u sheegto hadii kale deena qoftii Nabhat ay u ordayso warkaas caakif bay u sheegay caakifna qof kale u sheegay sidaasay warku ku gudbismayaa oo qof walba ku ogaanaya sidoo kale heshiiska beerkii iyo IBK waa la soo hubiyay sidaas ayayna ku midoobayaan beerkii iyo IBK hadii aad taageero u ahayd bal dhan kumitiga nugula wadaag waa tahay bal xoogaa intaan kaga nimaano musalsalka walaalaha aanu gudubna dhankaasi musalsalka Turkiga maxaa ka cusub iyo talayaasha musalsalka Turkiga musalsalka walaalaha xoogaa inta u dambeysay muuqaalka aan ku soo gabagabeynaa wixii noo dhiman haddaba
maalintii u dambeysay ama maalmihii u dambeysay waxaa la bixinayay abaalmarino kuwaas oo ah jilaaga ugu fiican ee musalsalada ugu fiican. Inkastoo dee abaalmarintan shirkadii aan aqaanay aysan ahayn ay bixinaysay, marka ma sii tixraacin shirkadii caanka ahayd ee musalsalada Turkiga jaa-isooyinkeeda bixin jirtay ma aha. Taas hadda ka hor ayay bixisay ayay ahayd jaa-isooyinkii ama abaalmarinadii musalsalka dhanka murugada ugu xiisaha badan wuxuu noqday Walaalaha. Sidoo kale musalsalo badan ayaa kamid ahaa sida Jasiirada, sidoo kale adi musalsalaadka Walaalka laguma soo koobi kara musalsalada ka qayb galay waqti xaadirka musalsaladaas wayba dhamaadeenba markii u dambeeyay ee la qabtay sanadkan bilowgiisa intii hore ayay ahayd, marka mar labaad lama qabanba. Marka shirkad yar oo kale ayaa iyaduna sameysay abaalmarino kale, abaalmarinadaas oo la guddoonsiinayo Tozluyaka musalsalka lagu magacaabo ama Kalar Borley, sidoo kale musalsalka Imaqal. Marka waxaa dhacday runtii arrin la yaab leh oo hadalhayn aad u weyn sameeyay isla waqti xaadirkana la hadalhayo. Jilaaga ama atooraha musalsalka Imaqal Kanaat ayaad u taqaantiin, abaalmarin ayaa la siinayay, garabkiisa ma taagno, atirisadii ma taagno, wuxuu sawir la gelayay musalsalkii kale ee cadowga isku ahaayeen ma la dhihi karaa, yacni musalsalkii kale ee isla tirtamayeen inkastoo kaasaa ka daawasho badan, laakiin musalsalkii kale ee isla tirtamayeen ee Tozluyaka ama Kalar Borley ay sawir isla gelayeen, atirisidiina ma joogto. Musalsalkaasna wuxuu igaga yaabiyay atoorahoodii maba joogaba. musalsalkaas weli atirisid looma samayn, atirisid way dhima rabtaa macnaha gabadha lagu magacaabo waxaa filaya Jamire inay tahay, laakiin way dhima rabtaa. Marka musalsalkaana atoorihii abaalmarin lama siinayo, musalsalkan kale Imaqal atirisidii abaalmarin lama siinayo. Director ka waalan weligii hore uma arag directoradaas, yacni kulli waxa laga yaabaa dee jileenka in laga helay. Adi waa mid runtii aad iiga yaabisay atirisadii musalsalka Imaqal atoorihi atirisadii ma wataba asay kaliya ay abaalmarinta qaadanaya. Hadda ka hor asiyadii abaalmarin la siinay doorukuna loo raacin jiray musalsalkii la wada yaqaanay badee. Sidoo kale musalsalka Tozluyaka jilayaasha qayb kamid ah unba jaa-isada la siiyay, abaalmarinta la siiyay, sida ninka lagu magacaabo Carab ama Sinaan, iyo sidoo kale Shagri, iyo sidoo kale hal wiil oo kala soo raaca oo magaciisa waqtigan aan xasuusan, laakiin Shagri saaxiibkiisa waayaba dee. Shagri isagu waa saaxiibo oo maba kala haraanba, magaciisa iga hoos baxay xalqadii dambe zamaana daawan. Marka ay Aasiya xitaa maalmo ka hor ayay atirisada ugu fiican ayada xitaa ay qaadatay. dee musalsalka Walaalaha abaalmarino way ka dhargeen, xitaa Cumar waa qaatay, Suusee baa qaadatay, Beerkii IBK baa qaatay. Qof walba musalsalka Walaalaha ku jira badi 90% way qaateen jaa-isooyinka ama abaalmarinada, aad bay uga dhargeen midaas oo kulli abaalmarintii weyneedna lamaba qaban Soomaha. Insha Allah xalqadan sabta waxaan rajeynaynaa in ay kor u kac sameyso dhanka daawasho, maadaama toddobaadkan uu soo laabanayo Cusmaan Beritola ayaa la daawanaya aan filayaa. Marka musalsalo kala badan way soo laaban doonaan, kuwa cusubna waa la bilaabayaa, kuwii horena qaar bay daawashada u kordhaysaa. Muuqaalkan intaan ay ku egyahay muuqaalkan xaqiis iska sii oo like iska saar. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.